السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو نقصن داوديال كسو دوادا channelka YouTube-ka أصلح أبا سافي maanta waxaan idinka sheekeyn doonaa qisadii Yacquub calayhi salaam. haddaba aan bilowno qisadii Yacquub calayhi salaam. Yacquub calayhi salaam waxaa dhalay nebi Isxaaq calayhi salaam. horta waxaa jirta afar nebi oo ay isdhaleen. nebi Ibraahim wuxuu dhalay nebi Isxaaq, nebi Isxaaq wuxuu dhalay nebi Yacquub, nebi Yacquubna waxaa dhalay nebi Yuusuf calayhi salaam. marka nebi Isxaaq calayhi salaam asagoo oo 40 jir ah ayuu gabar guursaday. markii oo gabadha uu guursaday, gabadha waxay ahayd ma dhasho. gabadhani magaceeda waxaa la oran jiray Rifqa. Isxaaq calayhi salaam ilaahay ayaa baryay, ilaahay ayaa awlaad siiyay kadib Rifqa. isxaaq wuxuu dhalay laba wiil. labadaas wiil mid waxa uu bixiyay cays, midna wuxuu bixiyay Yacquub calayhi salaam. marka cays iyo Yacquub waxaa dhalay Isxaaq. waxaa la sheegaa in Isxaaq uu jeclaa cays wax ka badan jaceylkiisa Yacquub, waayo wuxuu ahaa curidkiisa, halka Rifqa ay jecleed Yacquub in ka badan walaalkii, waayo wuxuu ahaa labada kan ugu yar. waxay sidoo kale sheegeen in markii uu Isxaaq gaboobay uu arigiisa daciifay, wuxuu ka codsaday cunto wanaagsan oo dhadhan leh wiilkiisa cays. wuxuu ka codsaday inuu baxo uu soo ugaaro ugaar dabeedo kariyo, si markaas uu Isxaaq u barakeeyo oo alle ugu baryo barako iyo khayr. cays wuxuu ahaa ugaaryahan, markaasuu baxay si uu ugu soo ugaaro. hase yeeshee Rifqa hadalkii dhan ayay maqashay, bannaanka ayay joogtay oo cays aabbihiisa Isxaaq u dhahayay eri ii keen, erigaas ii shiil. kadib waxay u sheegtay arrintii Yacquub. Yacquub wuxuu yeelay isla markii erigii asaga ayaa keenay, hooyadiisa ayaa u dhiibay. erigii waa la khalay, waa la shiilay, waxaa loo geeyey Isxaaq calayhi salaam. waa waqti oo asaga gaboobay oo indhihiisana daciif ay noqdeen. kadib cays wuxuu lahaa timo. Yacquub calayhi salaam timoni ma leheen. Yacquub waxaa yeelay maqaarka oo eriga ayaa soo gashtay ilaa iyo gacmihiisa. kadib ayaa u keenay aabbihii. aabbihii Isxaaq wuxuu dhahay adigana waa kuma yaa tahay? wuxuu dhahay aniga waxaan ahay cays. kadib gacmihiis ayuu taataabtay, markaasuu dhahay gacmahan waa gacmihii cays, laakiinse codkan waa codkii Yacquub. kadib aabbihii hilibkii waa cunay. markii oo Isxaaq calayhi salaam hilibka oo cunay, waa u duceeyey inuu ahaado midka u sharaf badan walaalihii dhexdooda, iyo in xukunka awooddiisa gaarto dhammaan ummadaha oo la siiyo risqi iyo khayr oo badan. Yacquub markii loo duceeyey oo iska tegay kadib, waxaa ugaarsidii ka soo laabtay cays. wuxuu dhahay aabe waa kanay hilibkii aad iga dalbatay, waan kuu soo shiilay, waan kuu keenay. kadib wuxuu dhahay aabbihii oo mar dhowle ma ii keenino, adig hilibka waa cunaybe. kadib cays waxaas dhahay wallaahi aniga ma ahayn, aniga kuma keenin hilibka. cays qalbigiisa waxaa galay xumaan. kadib waxaas dhahay aniga ma dhaafayo Yacquub, aabbahayga markii dhinto Yacquub waan dilaa. kadib wuxuu dhahay aabe waan ku baryaa ii duceey, duco kale igu duceey. kadib wuxuu ugu duceeyey duco kale in ubadkiisa ay ahaadaan kuwa dhaxla dhulka wanaagsan, iyo in la siiyo risqi iyo miro badan. markii ay Rifqa hooyadooda maqashay handadaada cays oo u handaday Yacquub, waxay ka dalabtay Yacquub inuu isla markii tago oo aado abtigiisa gurigiisa. abtigiisa oo ah Laabaan, oo ku nool yacni magaalada la dhaho Xaraan, oo la joogo intii uu carada ka baaba'ayo walaalkiisa. waxaa sidoo kale ka dalabtay inuu guursado mid ka mid ah gabadhiisa, oo ka dalabtay ninkeeda Isxaaq inuu asagana sidaan oo yeelo. markaasuu Isxaaq u yeeray Yacquub oo u duceeyey oo ka dalbay inuu yeelo sidaas. markaasuu sidaas yeelay. Yacquub wuxuu tagay casarkii maalintaas. saa markii uu gaaray meel xoogaa jirtay, wuxuu u hakaday habeenkii, waayo waxaa dhacday qoraxdii. wuxuu soo qaatay mid ka mid ah dhagaxyadii halkaas yiil oo barkaday oo dhulka dhinaciisa dhigay si uu u seexdo. wuxuu ku riyooday salaan dhulka cuskan oo cirka gaarsiisan. waxaa ka soo degayay oo fuulayay malaa'ig. waxaa la hadlay rabbigii allah oo ku yidhi waa aniga rabbiga, waxaan ku siin doonaa iyo rifkaaga arlada aad joogto, oo ku barakeyn doonaa oo badin doonaa ubadkaaga, oo ku fidi doonaan dhammaan adduunka. markii uu Yacquub ka soo kacay hurdadiisa, wuxuu ku farxay riyadiisa. markaasuu wuxuu nadar iyo shardi ku galay in haddii uu laabto gurigii aabbihiisa isagoo nabad ah, inuu ka dhisi doono masjid halkaas, iyo wixii alle siiyo oo meel taban oo meel u bixin doono
dar alle kadib wuxuu qaaday dhagaxii oo ku shubay saliid korkiisa si uu aqoonsado wuxuu u bixiyey meeshaas beyt alleh yacni gurigii ilaahay waana halka uu yahay hadda baytulmaqdis uu isagu dhisay waa dambe yacquub calayhi salaam markii oo soo gaaray oo imaaday guriga oo abtigiisa waxaa ka dalbaday gabdhihiisa mid ka mid ah inuu guursado abtigiisani waxaa lahaa laba gabdho gabdhahaasna waxaa lagala oran jiray raaxiil iyo liya raaxiil iyo liya waxay qurux badneed raaxiil kadib abtigiisa waxaas dhahay اوكي waan ku siinayaa raaxiil laakiin waxaa shardi ah 7 sano inaad ii shaqaysid yacquub wuxuu dhahay marxaba muxmu abti 7 sano waan ku shaqaynayaa haddaad i siinaysid raaxiil yacquub calayhi salaam 7 sano waa shaqeeyey shardigii waa ka soo baxay wuxuu dhahay abti waan ka soo baxay shardigii ee ii guuri gabadhii abtigii marxaba ayuu dhahay abtigii kadib xaflad yaris ayaa dhigay dadkii ayaa isku wacay waxaa loo guuriyey liya raaxiil looma guurinin wuxuu ahaa haween oo mugdi ah يعني ولا ساحدي وحلا ساحدي لي يا لا ساحدي وقت غاس يعني مجري النل وحياشاس وحاجري شمع يو فينوس كدب مركي ولا ساحدي لي مركي أواجه بريي يعقوب وحو أركي قبل إنه تهي لي ما بقيهن راحيل كدب تجيس وحو ده أبتي ما حد خيانتي أنا وحنقول دستي راحيل وحد يجورسي لي ما حد عي كدب يعقوب أبتجيسا لابان أياله ديجير وحو ده هاي أنا شرعي نويا الوحواية تنوين أيضا جوكتو تنير لوما جورنا يخف محايلي راحيل يليا ليا أي وينيت تنوين أو جوكتو تنير لما لا جورنا يو هذا دربت الراحيل تضوصنا كله إنات إشخاص دواية كذب أيام كو جورنا راحيل يعقوب مرحبا أيو دهي تضوصنا كله أيو شخي يعقوب كذب تضوضي سنة مركي دماضي أيا هدان مرلبات لو جوريي ليا ولا شيء راحيل laba walaalo ayaa isku guursaday waagaas waa sharcigooda waa dhigi jiray inaa oo laba walaal isla guuriyo wax oo la nasakhay ma jiro yacni waqtigaas qofka bini aadanka laba walaal waa isku guursanayay kadib ayaa la nasakhay waxaa lagu nasakhay kitaabkooda towraad inaan bal la guursanin laba gabdhood oo walaala ah laabaan wuxuu siiyey mid walba labadiisa gabdhood gabar shaqaale ah wuxuu siiyey liya gabar shaqaale ah oo la oran jiray silva wuxuuna siiyey raaxiil gabar shaqaale ah oo la yiraahdo bilha yacquub gabadhii asaga oo jecleen oo la dhihi jiray liya waxay u dhashay wiilalkaasna oo la kala dhihi jiray robiil shamcuun laawi iyo yahuuda markii ay aragtay raaxiil inaysan wax ilmo u qaadin yacquub waxay ka maseertay walaasheed waayo raaxiil waxay ahayd mid oo madhasha ah markaasay siisay yacquub addoonteedii bilha si uu la jiifto oo ay ugu dhasho ilmo bilha waxay u dhashay yacquub wiil ay u bixisay daan kadib waxay u qaaday uur kale oo u dhashay yacquub wiil kale oo la yiraahdo niftaali markaasay ay liyaa iyadana aragtay arrintii oo walaasheeda ay samaysay oo addoonteeda siisay iyadana waxay siisay addoonteedii silba yacquub waxayna u dhashay yacni wiilal oo la kala yiraahdo jaad cashiir haddani uur kale ayaaba u qaaday liya mar kale oo ay dhashay wiil oo shanaad oo la yiraahdo iskaar haddani uur kale ayay qaadi wiilkii lixaad ayay dhashay waxaana u bixisi zabaluun haddani waa dambe waxay qaaday liya uur kale waxay u dhashay gabadhaasni waxaa loo bixiyey diina marka liya waxay u dhashay yacquub 7 ilmood 6 wiil iyo hal gabar yacquub calayhi salaam gabadhii oo jeclaay raaxiil uurba uma qaadin raaxiil kadib ilaahay ayay barisay inay u dhasho yacquub ilmo ilaahayna dacodeeda waa ka aqbalay raaxiil kadib uur ayay qaaday waxay u dhashay wiil aad u qurux badan oo wanaagsan oo sharaf badan waxayna u bixisay wiilkaas yuusuf calayhi salaam yacquub calayhi salaam markii oo carruurtaas dhan loo dhalaayay wuxuu joogay guriga oo abtigiisa ama gobolkiisa markii oo carruurtaas dhan oo helay abtigiisa waxaa ka dalbaday inuu oo gobolkiisa u laabto yacquub abtigiisa wuxuu dhahay yacquub hanaga tegin barakooyinkan dhan xoolahan dhan madaxa ayaan ku helnay waxaad rabtid iga dalbo halkan ila joog kadib yacquub abtigiisa waxaa ka dalbaday xoolo aad iyo aad u fara badan xoolihii waa la siiyey iyo waxaa la siiyey geedo oo miro oo soo baxayaan kadib xoolihii waa qaatay waxaa u kaxaystay meel oo loo soconayo 3 maalmood yacquub waxaa u batay oo u barakoobay xoolihii
wuxuu yeeshay eri iyo lo iyo geel oo tiro badan iyo shaqaale oo badan. abtigii laabaan iyo ilmo abtiyadii waxaa galay xasid xumaan. yacquub waxaa arkay dadkan inayba ahayn sidii horay oo isbeddeleen. kadib markaasuu alle wuxuu u waxyeeyey yacquub inuu u laabto arladii aabbayaashii iyo dadkiisii, oona ka ballan qaaday inuu la jiraayo allah. yacquub wuxuu u sheegay arrinkaas xaasaskiisii, wayna ka yeeleen inay raacaan. wuxuu kaxaystay yacquub dhammaan xoolihiisa iyo wixii maal ahaa oo halkaa ka kasbaday. markii uu laabaan ogaaday taa, wuxuu dabagal ku sameeyey yacquub oo soo haleelay. laabaan wuu canaantay. laabaanna waa yacquub calayhi salaam abtigiisa oo ku yidhi wuxuu ku yidhi, waa maxay waxaan aad samaysay? maxaad u baxsatay oo adigoo lagu ogeyn oo tagtay oo i khiyaantay? maxaad iigu sheegi weyday si aan kugu soo wootiyo farxad iyo heeso? xitaa waxaad tagtay anigoo dhunkan ilmaha aan awow u ahay oo aan soo gootinin, ee sidaas maxaad u yeeshay yacquubo? kadib yacquub waa soo baxay. waxaa u soo baxay dhulkiisa oo aabbayaashiisa awowayaashiisa inuu imaado. kadib yacquub wuxuu walwalsanaa walaalkiisa cays, maxaa yeelay yacquub calayhi salaam markii oo gobolkiisa ka soo baxaayey, sababta ugu soo baxay waxay ahayd walaalkiisa cays ayuu u goodiyey, uu dhahay aniga waan dilaa walaalkayga yacquub. kadib markii oo soo dhowaaday yacquub oo gobolkiisa imaaday, qofkii ka cabsanayeyba oo ahaa walaalkiisa cays ayaaba soo dhoweeyey. walaalkiisa cays maba ahaba kii oo u goodiyey. markaasuu ayuu walaalkiisa yacquub soo dhoweeyey, waana u sujuuday. wakhtigaas hore ayaga inaad dad u sujuudaan way bannaaneed. waa u sujuuday. kadib cays walaalkiisa yacquub wuxuu dhahay, dadkaani waa kuma yaa yihiin? kadib wuxuu dhahay, dadkaan aad u jeedid waa xaasaskayga iyo carruurtayda oo ilaahay i siiyey. markii oo yacquub iyo walaalkiisa cays oo kala tageen, yacquub markaas weli ma aanan soo gaarin gobolkiisa. intii soo gaareen kadib markii uu soo agmaray meel la yidhaahdo saaxuur, wuxuu ka dhisay guri oo u sameeyey xero oo xoolihiisa. kadib wuxuu yimid orshaliim, magaalada shaqiim, oo xero asa xaggani ka sameeyey magaalada dabadeeda. wuxuu kala baxay 100 neef oo eri ah, beer uu lahaa shaqiim bin jamuur oo ka taagtay halkaas teendadiisa. halkaas wuxuu ka dhisay mawlac oo u bixiyey al-ilaahi israa'iil. alle baa amray inuu dhiso halkaas si uu ugu cibaadaysto. haddana waxaa loo yaqaan qudus ama baytulmaqdis, eenuu cusbaysiiyey nebi sulaymaan bin daa'uud calayhi salaam. waxaana halkii dhagaxa oo ku calaamaystay nebi yacquub wuxuu ku shubay dhagaxaas saliid. hadda ka hor ayaan soo sheegnay qisada nebi yacquub calayhi salaam markii oo soo baxaayey oo gobolkiis ka soo baxaayey, waa dhagaxii oo asaga ku seexday oo arkay malaa'ig. kadib wuxuu dhahay dhagaxii wuxuu ku shubtay yacquub calayhi salaam saliid ayuu calaamaystay. markii aniga aan soo noqdo inaan halkan mawducan ku dhiso, mawducii uu ku dhisani waa meeshii oo ku dhisay. mawducaas waxaa banaqday hadda qudus. kadibna waxaa dib haween u sameeyey nebi sulaymaan bin daa'uud calayhi salaam. markii oo safarka ay ku jiraan nebi yacquub calayhi salaam asaga carruurtiisa xaasaskiisa, waxaa fool qabtay xaaskiisa raaxiil. foolka aad iyo aad ayay ugu dhibtootay. ugu dambayntii way dhashay. waxay dhashay wiil. wiilkaasna waxaa loo bixiyey binyamiin, laakiinse iyada wax badan ma nooleen, hore ayay ka dhimatay. markii oo la dhalay binyamiin, iyadiina meeshaas ayaa ku dhimatay. yacquub wuxuu ku aasay afraas, meel la yidhaahdo afraas oo ah baytulaxam. wuxuu dhigay qabrigeeda dhagax. tan iyo maanta qabrigeeda waxaa lagu aqoonsadaa dhagaxa oo la yidhaahdo qabrigii raaxiil. yacquub calayhi salaam wuxuu dhalay 12 wiil. liyaa waxa uu dhashay roobiil, shamcuun, laawi, yahuuda, isaakir, zabaluun. raaxiilna waxay u dhashay yuusuf iyo binyamiin. addoontii ay u hubaysay raaxiil waxay u dhashay daan iyo niftaali. addoontii ay u hubaysay liyana waxay u dhashay jaad iyo cashiir. nabad korkooda ha ahaatee, yacquub wuxuu u yimid aabbihii isxaaq oo ku noolaa magaalada xibroon ee ku taal arlada kancaan ee uu deganaa ibraahim calayhi salaam. kadib waxaa bukooday isxaaq oo dhintay isagoo 180 jir ah. waxaana aasay labadiisa wiil oo ay kala ahaayeen alcays iyo yacquub. waxayna iskula meel kula aaseen aabbihii ibraahim khaliilullah calayhi salaam. walaalahayga qisadii yacquub calayhi salaam halkaas ayaa nooga dhammaaday insha allahu tacaala. haddana yacquub bacdigiisa waxaan ka sheekayn doonaa yacquub wiilkiisa uu ahaa yuusuf calayhi salaam insha allah. sidii hore aan idinku soo sheegay, ambiyada sida isku xigaan ayaana idinku soo
gudbin doonaa insha allahu tacaala walaalahayga khisadan markii idin soo gaara adinkana si shargareeya sadaqal jaariyaha idin naqatee khisadana waxaa idin soo turjumay walaalkiina aslax abasaafi waxaana lagu soo turjumay studio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadabo sidaas iyo nabadgelyo like share